ogsoonow inaan ku jecelahay أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نكو بندامي مسانا ووجهدada caashaqayga laalo aad baan idin salaamaya bahda BBC waana idinka gudoomay mahad celintiina taariikh nololeedkayga markaan kaaga sheekeeyo taariikh nololeedkayga iyo meesha aan ku dhashay baa wax weeyaan xamar baan ku dhashay aniga waxaan ku barbaaray Hargeysa iyo Nairobi labadaas aan u dhaxeeyay fanka waxaan u leenahay dhaxal ahaan waxa jira walaalahay badankoodu ma haysan laakiin way gabiyaan waxa kamid ah gabar adeerkay dhalay oo la yiraahdo Xalwo Bulxan Cali Kulan oo gabaygii yamyam guur aan kala aado gabadha ka jawaabtay family marka gabiyaaba u badan yihiin wallahi Nairobi anoo jooga waxaan kamid ahaa koox la yiraahdo Fundisbaan halkan baan ka salaamayaa kooxdeeda iyo abwaanadeeda waxa jirtay ciid baa soo galaysa waxay ahayd 2017kii adoo waqti waxay ahayd ciid ay soo galayso maalmaha kamida marka waxa ii yeeray abtigay Bulshaawi waa ninka tumayesta iyo Cabdi Mudalib ninka la xamiistaha ah iyo ninka heestas kale Cabdirashiid Caaqilka ii yeeray heesta la ii dhibay heestuna waxay ku socotay Caaqilka kulay sameeyay laakiin hees jacayl ah tahay ma garanaysaa markaas way ila muuqataa wallahi horta waan ka helay waliba inta kooraskan ka helay oo ma garanaysaa luqadaha intaasna waxa weeyaan Cabdi Mudalib aad baan uga mahad celinayaa Cabdi Mudalib baa fikradaasna keenay intaasna aad baan uga helay waliba gabadhii ma garanaysaa nala joogtay barnaamijka naga qabanaysay habeenkaas heesta markii la tumayay la xameynay way fadhiday waxay tiri heestan waxay noqonaysaa heesta barnaamijka ka soo baxaysa wayna rumowday wallahi horta wax cajiib ay walaal ahayd habeenkaas heesta oo la bilaabay ayaan imid ka bacdi fikradii oo Cabdi Mudalib keenay ayaa waxay noqotay wax kale cajiib bay ila noqotay aniguna waan ku qancay dadkii meesha fadhiyay way ku wada qanceen xaqiiqo waa la isku raacay habeenkaas saasayna ku hirgashay heesto wallahi anoo gurigayga iska jooga maalin waxa la ii soo diray wiil YouTuber oo ka hadlaya heesta oo dhahaya heestan waxay noqotay macna heesta ugu views ka badan asaga adiga odaygaygan marka tusay waxaan ku yiri bal ila fiir waxaan markuu wuxuu ugu yiri heestan waa tagtay marka anigu waxa maya wali ma garanayaan quraan waxaan fahansan waa wax iska caadiya maalin labaad haddana odaygayga intuu yimid ugu yiri ma aragtaa heestan waa tagtay macnaha waxay ugu noqotay ma garanaysaa wax oo ma garanaysaa sabray maxaan ku sheegaa macnaha offside waxaan fahmi waayo macnaha waxa ila noqotay sabrayso macnaha riya amal ma fahanti wixii markay kugu noqdaan kadisoo kale filan waa amal ay ugu noqotay faham nimcadeydun baan ahaa odayga wuxuu isku dayay wax badan inuu iga dhaadhiciyo uu ifahansiyo uu ii sheegay heestan way tagtay saan waay ma waxaan dhahay caadi waayo wax dadku ku ciyaaraan le waaye waa iska caadi mas'uulada maya waxaan sugaynaa in lagu soo dalbado macna waxaan hadda soo socdo waxaan hadda dhacay iyo kambaniyashan iyo waxaan odayga wuxuu ifahansiyay inay dad isoo dalbanayaan kambani imaan doono wax badan ma garanaysaa marka wallahi hadda waxaan dareemayaa happy waxaan ahay macnaha nimcadii hore ma garanaysaa waa waxba iga bedelan hadda horta happy waxa la yiraahdaa ani gabadha iga yar da'da iga yar baa la yiraahdaa waxa ii bixiyay laakiin magacan waxa ii bixiyay kooxdii aniga aan ka tirsanaa kooxdeedii Fundisbaan ayaa ii bixisay happy waliba waxaan ku walaashay baa la yiraahdaa magacaas iga joojiya marka magaciisa dib igu baxan faan way yarayd wax oo ma garanaysaa luqado kala duwan isku daro iyo Soomaaliya way yarayd markii ma garanaysaa heesta waxaan uga helayba macnaha markaan ka helayba waxaan dareemay inay ma garanaysaa ka duwan tahay heesaheena saasaan ku jeclaaday ma fahanti oo qaata
والله آد بان ugu farxaa markaan daawanayo aad baan ugu farxaa aad baan uga helaa waqti baan siiyaa macnaha daawashadoodan waqti siiyaa iyo ciyaarahooda soo u ciyaaraan xataa dad baan ku fikiraa inaan ku daydo والله dad baan ku fikiraa inaan ku daydo marka ciyaarahooda aan ka helo mafaad macnaha inuu qof walba istaago qof walba ixtiraamo macnaha magaci Soomaali in la ii xambaariyo awalba aan xambaarsanaa oo ma garanaysaa aad u jeclaha Soomaalinimada in magaci Soomaali la ii xambaariyo qof walba dhaho magaceena bad meel sare geysay magaceena meeqaam u yeeshay wallahi wax weyn ban iska bedelay macnaha waxaan aaminsanahay in hadda Soomaaliyo dhan aan magacooda madaxa ku sito ogsoono inaan ku jecelahay أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نكو بين دمي مسانا ووجه دادا عاشقيقا